السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي كلانتي وعن داوديال meel kastoo aad joogtaan halkani waa warar TV kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn aad daawan doontaan waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay filla Soomaaliya oo diyaarinaysa banaanbax midkii ugu weynaa oo lagu taageerayo farmaajo iyadoo la ogaaday qorshaha rasmiga ah ee ay ka leedahay filla Soomaaliya sidoo kalena waxaa jira isku dayo roob uu ku doonayo baajinta mudaharaadkan cabdiraxmaan cabdishakuur oo mar kale weerar cad ku qaaday madaxweyne farmaajo isagoo sheegay inuusan nasan doonin ilaa laga soo saaro filla Soomaaliya xilli sidoo kale uu soo bandhigay kala qaybsanaan baahsan oo ka dhex jirta xubnaha mucaaradka xaaladihii ugu dambeeyay baadhista afgambiga ay sheegeen kooxda rooble ee 27 Diseembar oo maraya meel xasaasiya gudidii loo saaray oo qaaday tallaabo kale waxaana la soo bandhigay waqtiga natiijo sugidda iyadoo sidoo kalena la shaaciyay 5 kamid ah liiska saraakiil loo haystay in arrintani ay ka dambeeyeen haddaba waxaynu dulistaag ku samayn doonaa arrintan sida ay ku bilaabatay iyo halka ay xilligan marayso wararka ka baxsan Soomaalida ee xilligan daawan doontaana waxaa kamid ah dowladda Mareykanka oo wada dhaqdhaqaaqyo dowlad cusub loogu dhisayo dalka Suudaan intaasi daawadayaal waa qaar kamid ah qodobada ugu waaweyn wararkeena haatan isu diyaariya daawashada kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan haddaysa ku tahay markii koobaad nagu soo biiro subscribe inoo sar channelka muuqaalka like kadibna u share garee saaxiibada jecelina sidaad helaan xogaha xasaasiga ah iyo wararka xaqiiqada ku saleysan ee aynu halkan ku soo gudbino aan ku bilaabay saaxiibayaal sidii hordhaca warkeena aad ku daawanayseen filla Soomaaliya ayaa abaabulaysa banaanbax noociisa aan hore loo arkin oo la doonayo in taageero baahsan loogu muujiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warbaahinta qaar ayaa si hoose u helaysa xogaha la xiriira in Muqdisho uu ka socdo abaabulka madambaysa oo taageeradiisa ujeedka ugu weyn tahay madaxweynaha Soomaaliya banaanbaxana waxa abaabulaya xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxaana hogaaminaya xubnahan Cali Yara Cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga maamulka gobolka Banaadir si gacan ahna uga geysanaya abaabulka banaanbaxa lagu taageerayo Farmaajo taageerada Farmaajo ka soo banaanbaxa ayaa sidoo kale la doonaya in lagu cambaareeyo xubnaha beesha caalamka sida la tilmaamay lana sheegay in faragelinteeda ay ka diisay arrimaha Soomaaliya isla markaana waxa la tilmaamay in dib loo soo nooleynayo ka hortagga sheekada nacaybka shisheeyaha ee dalka ka jirta balse waxa xilligan xasaasiga ah muuqata in madaxweyne Farmaajo uu diidan yahay faragelin kasta oo Soomaaliya uga imaanaysa dunida isla markaana uusan doonayn in hadda wixii ka dambeeyo Soomaaliya ay soo galaan gacmo shisheeye go'aanada xasaasiga ah qaarkood saameyn togan iyo mid taban ayaa sida lala socda ay ku leeyihiin xubnaha mucaaradku abaabulkan ka dhanka banaanbaxuna waxa uu ku soo aadayaa iyadoo Muqdisho uu weli ka socdo shirki golaha wada tashiga ee uu watay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaase wararkii ugu dambeeyay aanu helayna tilmaamayaan in uu soconayo qorshaha madaxtooyada Soomaaliya ay ku doonayso muujinta banaanbaxyadan banaanbaxa ayaa laga diyaariyay inta badan degmooyinka ugu badan gobolka Banaadir waxaana la filayaa in shacabka Soomaaliyeed oo aad u tiro badan iskugu yimaadaan goobaha fagaarayaasha isla markaana halkaas ay ka muujiyaan sida dunida ay ugu sheegayaan in Soomaaliya ay ka kortay xilligii shisheeye kalkaalnimada ama taageerada ay uga baahnay sidaas darteedna ay u baahan tahay in ay hesho dawlad iyadoo ay xor u tahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha isagu uu magacaabay ayaa muddooyinkan ugu dambeeyay waxa ka dhaxeeya khilaaf aad xasaasi u ah waxaana midba kale dhankiisa uu ka wataa qorshe iyo hawlo u arkay inay yihiin kuwa isaga ka samata bixin kara waqtigan adag ee lagu jiro ee xasaasiga ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in banaanbaxan la qorsheynaya uu noqon karo mid aad u weyn isla markaana xilligan la doonayo in uu wadanka galo xaalad xasaasi isla markaana lagu muujiyo cidda ugu badan ee haysata taageerada dadka shacabka ah sida loo ogyahay madaxweyne Farmaajo ayaa taageerada ugu badan ka haysta shacabka Soomaaliyeed waxaana qorshahan cusub ee soo kordhay uu yahay mid xadhka u jari kara qorshayaal markii hore ay degeen kooxda ka soo horjeeda ee taageersan Rooble siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa mar kale sheegay inuusan nasan doonin ilaa filla Soomaaliya laga soo saarayo madaxweyne Farmaajo waxaana sidoo kale uu soo bandhigay in kala aragti duwanaan iyo qaybsanaan siyaasadeed ay ka dhaxayso xubnaha mucaaradka mar kale xilli warbaahinta madaxa banaan ay weydiinaysay su'aalo ku saabsan xaaladda guud ee wadanka iyo halka ay xilligan wax marayaan
ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur ka hadlay arrimo aada xasaasi u ah oo ay ugu horeyso dagaalka uu kula jiro madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ujeedada uu ka leeyahay iyo waxa uu yahay qorshihiisa. cabdiraxmaan cabdishakuur oo inta badan ka mid ah siyaasiyiinta baraha xiriirka bulshada ku dhaliila xukuumadda madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu tilmaamay in marnaba nasiinadu aysan suuragal u ahayn tan iyo inta madaxtooyada Soomaaliya uu ka soo bixinayo sida uu sheegay farmaajo. waxa uu tilmaamay oo uu eedeyno badan ugu jeediyay madaxweynaha inuu ku takrifalay hanti dowladeed qaatayna go'aano burburin kara dowladnimada Soomaaliya sidaasi darteedna ay ku qasban yihiin inaysan u dulqaadan waxa ay u arkaan dhibaataynta dowladnimada Soomaaliya. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu tilmaamay in waqtiyada adag loo baahan yahay in la iska rab istaago waxa uuna sidoo kale fashil ka dhigay sira u qarsoonaa xubnaha mucaaradka oo ku aadanaa in ay jirto kala qaybsanaan iyo kala aragti duwanaan dhexdooda ah oo ku saabsan hanaanka loo wajahayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. waxa uu tilmaamay in isaga lafahaantiisu keliya ujeedka ugu weyn uu leeyahay tahay in filada uu ka soo baxa madaxweyne farmaajo balse xubnaha mucaaradka qaarkood ayuu tilmaamay in ay doonayaan in waddo ka wanaagsan midda iminka la marayo loo maro in madaxweynaha laga soo saaro madaxtooyada. inkastoo qorshaha riyada ah ee mucaaradku uu yahay midaan marnaba rumoobin haddana waxa ay dad badani aaminsan yihiin in hadalkiisu yahay mid keeni kara waxyaabo xanaf leh islamarkaana abuuri kara mar kale xiisad cusub oo laba kaclaysa. siyaasiyiinta mucaaradka sida la og yahay iyo sida uu isagu ka dhawaajiyeybo aragti ahaan isku fikirka ma ahan habka loo wajahayo madaxweynaha Soomaaliya iyo khilaafka kala dhexeeya ra'iisul wasaaraha balse cabdiraxmaan cabdishakuur oo lagu xantay inay cabdiraxmaan cabdishakuur oo si weyn loogu xantay in hayb ahaan uu garab siinayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo dambe waxa uu ku soo celceliyay in xaaladan xasaasiga ah loo baahan yahay in loo midoobo arrintan walow xubno ay kaga soo horjeesteen. xaaladihii ugu dambeeyay baadhista afgambiga ay sheegeen kooxda Rooble ee dhacay 27 Diseembar sanadkii tagay ayaa markaa maraya meel xasaasi ah iyadoo la soo bandhigay liiska ilaa 5 sarkaal oo loo haysto in ay ka dambeeyeen arrintan. tan iyo wixii ka dambeeyay 27 bishii Diseembar sanadkii tagay 2021 hadalhayn la xidhiidha dhacdadii ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo iska bariyeelay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa haddana kooxda Rooble waxa ay qodqodayaan goldaloolooyin hor leh waxayse markaan soo bandhigeen magacyada saraakiisha loo baarayo arrintani. ilaa 5 sarkaal ayaa waxa ay ka soo muuqdeen liiska ay soo saareen waxayna ay kala yihiin Xasan Aadan Dhicis oo ah taliyaha guutada 17aad, gaashaanle Shaafici Nuur Axmed abaanduulaha guutada 17aad, gaashaanle dhexe Cabdi Yaasiin Cali Kooshin taliyaha ururka 6aad ee guutada 17aad iyo gaashaanle Xasan Duwane Cumar abaanduulaha ururka 6aad iyo laba xidigle Maxamed Cadow Muuse Shaarib oo ah taliyaha kooxda hurinta gurmadka 6aad. sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jenaraal Dawaa Yuusuf Raago oo loo diray warqadan xasaasiga ayaa waxaa la faray in maalinta Sabtida ah ee toddobaadka soo aadan saraakiishan loo diro xarunta dawladda oo haatan uu ka shaqeeyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. arrintan ayaa si dhowr jeer ah loo sheegay Rooble iyo xulafadiisu in ay meesha ku joojiyaan isla markaana ay bilaabaan in qorshahan la bedelo sida hore loo sheegay balse Rooble iyo xulafadiisa ayaa ku adkeysanaya in gudidii 1 bisha magacaabay uu go'aanadooda iyo magacaabistooda u adeegsaday xubnaha ka tirsan golaha wasiirada. si kastaba tallaabada uu haatan qaaday gudida ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid sii horin karta xiisada jirta maadaama loo yeedhay saraakiil uu horkacaya ciidamada ilaalada madaxtooyada gaar ahaana kuwa dhacdadan loo haysto. inkastoo dhowr jeer hore dowladda Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynuhu uu ka hadlay qorshihii 27 Diseembar dhacay haddana Rooble iyo xulafadiisu kuma qanacsana. warar soo baxaya ayaa tilmaamaya in uu dadaalo kala duwan oo arrintan lagu joojinayo wado ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo tan iyo markii dhacdadu ay dhacday si weyn u kala dhex galay madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha. waxayse dad badan sheegeen in kaliya kiiskan uu ku hungoobayo Rooble oo aysan jirin dambiyaad si toos ah loogu hayo cadeymo oo lagu qaadi karo saraakiishan oo guud ahaantood bixilal kala duwan ka haya madaxtooyada Soomaaliya ayaa markan ay la kulmayaan waxa ay tahay arrimo la xidhiidha afgambi oo ay xukuumadda Rooble gaar ahaan xulafadiisu tilmaameen in isaga la damacsanaa si horinta xiisada siyaasadeed ee dalka ay dad badan ku fasireen arrintan waxaase intooda ugu badan isweydiiyeen sida uu xaalku noqon doono.
ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa wada dadaalo kala duwan oo dhigeeda Suudaan ay ugu dhisay dowlad cusub ka gadaal qalalaasi ka dhacay halkani ilaa dhowr nin oo sarsare oo si weyn looga yaqaan Suudaan ayuu Mareykanku danaynaya inay noqdaan hogaamiyaasha dalkan isla markaana ay dejiyaan xaaladda qasan gudaha saaxiibayaal waxay xilligan idinka haynay degalada Soomaalidu ay degtay iyo dunidu waa nagaynta mar kale intaynu kulmayno waxaan idinkaga